السلام عليكم بقارتي والله بجكتين ومر كلمة قال عصبة كي قدرنا وركي قدام بين سوق أخبار ديوا وين ولا ديوان جرينيو ستي أو قدام بين جب صحيح يقول هي إدونيين حالة الرودري يبرسون أخبار دي سوق كردية شوغل ليفربول كأدن لصحيح شدا الروقو إنزو فرنانديز أو مركان ستي وكوجهان حالة نابولي يا جابرييل خيسوس يا وركلتا يعني سلاقي هدي مقال كيشن ولا جري كان سبسكرايب مسار هدي أنا كبلونو أخبار دي قدام بين سوق وروا وين يا جري weliba xaalad waaliya oo shooga ayay sameeyeen nimankii Liverpool waxaan la soconaa inay hayso baahi difaac xidiga badan oo difaaciyaha ay suuqa ka baadigoobayaan xidiga kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Ronald Araujo ayay leeshiyeen ama ay ku soo qaateen xidigan waxay u arkaanba inuu buuxi karo ama ka fargaray karo booski uu banay Ibrahim Konate dhaawac Giovanni Leonin iyo Bradley sida daraadeed ninkan ayay amaah ku soo qaateen si waxayna rabaan inay markaan xil ciyaareedkan ku soo doolaan tagaan Liverpool sidii u joogtay markaan waxay u dhaqaaqeen Ronald Araujo oo Barcelona ay taagiyiin allawiya mar un naga bixiya Liverpool gorgorta lama gelin waxba laguma xojeenin isla markii Deco wuu confirm gareeyay ninkan inuu diyaar u yahay inuu kooxda ka diro ugu dambeyn ama ayaa Liverpool loogu diray Liverpool sidii u joogtay oo difaac shubah looga sugayay sida Konsa kaleeto Aston Villa joogo ama xidiga kaleeto markaan Ronald Araujo u dhaqaaqeen xilligii dambeeto wayna gabagabeeyeen ama ay ku soo qaateen ugu dambeyn Liverpool ayuu imaanay tijaabada caafimaad ayuu maraya si uu kooxda uga mid noqdo marka horyaalkan haatan bilaabanaya Liverpool waxa la isdhahaa difaac shubah ay keensanayaan weerarka way soo kala kicinayaan nimanku mar labaad horyaalka ayay ku guuleysanayaan oo nimanku dabtoodii ayay ku soo noqonayaan laakiin indha fiican ay ulama eka nimanku sidii u socdeenba Araujo ayaba soo qaateenba marka reer Barca waxay taagiyiin qeer aqabtiin reer Liverpool ducee ugu wadaanba marka barta Twitterka marka tagto qosolka ka dhamaanaya sheekada sida ninkan loo jafayo iyo Liverpool sida la leeyahay wala qosolka ka dhamaanaya isku soo wada dub Liverpool waxay gabagabeeyeen Ronald Araujo ama ay ku qaateen adigu maxay kula tahay fikirkaadana la wadaag dhinaca kale xaaladda Manchester City hadaan eegno Man City akhbaaradiyo badan ayaa ka cusub Man City waxay gabagabeeyeen goolaha lagu magacaabo Rulli ninkan ay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta ee Marseille ama Olympique de Marseille ugu dambeyn sheekadiisa waa la soo gabagabeeyay 2 sano heshiis ayuu ugu soo biiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City ninkan back up oo kaliya ayuu isticmaalaya sababtoo ah James Trafford ayaa kooxda kubadda cagta Leeds oo ku biiray goolahayaal kale tan way ka dhaqaaqeen marka bedelkiisa ay raadinayeen ugu dambeynna ninkan ayay soo qaadeen dhinaca kale xaaladda Rodri iyo Manchester City iyo Barca xaaladdu waxay ku dhowdahay gabagabo ay sheekada ku dhowdahay dad badan waxaan arkayay Rodri ku dhagan oo farqa haysto isbuucida la soo dhaafayna way u alalaasayeen marka adduunka ayaa sidaa iska ahba ninkii aa weydo marka waa la caynaya ninkii aa haysatana waa la amaanaya marka Barcelona markii Real Madrid ninkan ay raadinaysay si shakhsiga la sii gaarayeen reer Barca way caynayeen Rodri wax ma kala ogey taagnaayeen haatan iyaga ayaa amaanaya Real Madrid ayaa caanaya jamaahiirta waxay leeyihiin Rodri waxba kale ma oga marka waa tukulishkii timirta gaari waayay kadibna yiri qaraar waaye isku soo wada dub Rodri wuxuu confirm garay ku beeritaanka Barcelona diyaar ay u tahay wax walba inay markaan xaliyaan Barcelona waxay rabaan dalabkii labaad oo official oo gaariya 58 milyan inay markaan diraan adiga lacag 60 milyan gaaraysa ay Barcelona diri doonaan dalabkii hore 45 milyan ah kooxda kubadda cagta Barcelona waa laga soo diiday reject ayaa la soo dhahay haatan waxay isku diyaarinayaan dalab labaad oo official ah inay diraan maanta ama xilliga dambeeto inay diraan ay isku diyaarinayaan sida haatan wararka Spain ka imaanaya sida gobolka Catalonia ay haatan warinayaan marka nimanka Barcelona Rodri way ka go'aantay inay soo qaadaan xaaladiisu waa gabagabo laacibka diyaar u yahay Barcelona inuu dhaqaaqo Man City ruuxeeda diyaar ay u tahay inay ninkan Barcelona uga cangelido si walba haatee sheekadu halka ay maraysaa reer Barca isbuucii ka hor ninkan way dhaliilayeen haatan way amaanayaan sababtoo xaggooda ayuu noqonaya Madrid isbuucii ka hor ama maalmo ka hor Rodri way amaanayeen maantana way dhaliilayaan maadaama cadawgooda oo noqonayo marka sheekadu halka ay kala taagan tahay Rodrina
mar dhow wuxuu noqonayaa laacib kabiira kooxda kubadda cagta ee Barca haddeese wax kale isbedelin. Suuqan la yaabkiisa ayaa badan maalmahan maadaama gabagabo uu yahay xilli walba waqti walba wax ayaa isbedeli kara. Dhinaca kaleeto Man City iyaduna waxay u dhaqaaqeen bedelka Rodri waxayna doonayaan Enzo Fernandez ayay doonayaan. Weliba haatan majalada The Standard waxay warinaysaa in kooxda Manchester City ee markan ay rabaan wadaxaajood inay la galaan kooxda kubadda cagta ee The Blueska waxayna rabaan Enzo Fernandez. Enzo Fernandez kooxo badan ayaa ku dagaalamaya, kooxo badan ayaa raadinaya. Real Madrid waxaa la soconaa inay si weyn u doonaysay laakiin markii dambe ay iska fogeeyeen laacibkan iyo wax walba oo ku aadan. Man City ayaa haatan sheekada keli ku noqonaysa xidigan ayayna rabaan markan inay soo xirigeliyaan macalinkiisii horete ee Maresca ayaa albaabka oo taagan soo dhawow halkani maw hoyga koobabka ee Premier League ku soo dhawow ayuu leeyahay. Sababtoo Man City waa kooxdii koobabka ugu badan haysata tobaniyadii sane ugu dambeeyay Premier League. Marka Enzo markan wuxuu noqonayaa laacib la midoobaya macalinkiisa horete ee la yiraahdo Enzo Maresca. Marka sheekooyinkaas ayaa soo kordhaya laacibka reer Argentine Man City ayaa albaabka u taagan. Man City ayaa doonaysa walow Chelsea ay doonayso 130 milyan lacag ka badan. Suuqan waa suuq mucjisadiisa wato nin walba aad doonato 130 milyan ayaa lagu leeyahay in ka badanba. Marka haatan City ninkan ayaa isku diyaarinayaan bedelka Rodri ayay u arkaan. Marka reer City marka muxuu ninkan idinku soo kordhi karaa mucaaradow adikuna fikirkiina dhiibta. Enzo Fernandez haddii uu ku biiro kooxda Man City muxuu ku soo kordhi karaa isbedel noocee ayuu kooxda markaan u horseedi karaa. Dhinaca kaleeto xaaladda Cristiano Romero sheekooyin badan ayaa jira. Laacibkan horta sheekadiisa markaa fiiriso waa ku wareereysaaba. Ninkan dhan walba waa laga jiraa. Arsenal aa doonaysay maalmihii ugu dambeeyay iska daa. Arsenal Tottenham dabka kala ma qaataan arrintaas macquul gal maaha. Inter Milan iyadoo heshiis ayay la gaareen laacibka. Tottenhamna qiimo fiican ayaa markaa rabaan inay ka siiyaan. Atletico de Madrid ayaa soo gashay shalayto ila doraad ninkan heshiis ayay la gaareen weliba official bid ayay dirayaan markan sida haatan wararku ay sheegayaan. Tottenham marka labada dhinacba lacag ayay ka kala rabaan Inter Milan iyo kooxda kubadda cagta ee Atletico de Madrid ba. Atletico de Madrid waxaa si weyn sheekada ugu shaqeynaya inuu soo dhaqaaqo macalinka Atletico Gamini kaliya Simeone oo arinta xidigan ka shaqeynaya heshiis shakhsi ayuu la gaaray kooxda kubadda cagta Atletico. Dhinaca kale tana heshiis shakhsi ayuu la gaaray Inter Milan. Marka labada dhinacba markan waxay ku tartamayaan xidigan. Tottenham ayay sheekada ka go'daa. Tottenham cidi lacag badan siisa ay Romero siinayaan sababtoo ah Romero waa uu doonayaa Inter, Atletico de Madridna waa uu doonayaa. Marka xaaladdu markaas si guud u qiimeyso xoogaa foswareer yar ayaa ku jira sheekada oo ma kala cadda laakiin Atletico de Madrid ayaa sheekada hogaaminaysa. Atletico ayaa laacibka ku dhow inay la wareegto sababtoo ah wararkii xalay soo baxay ilaa shalay toole waxay ahayeen kuwa laacibka Atletico de Madrid u fiican. Laacibku heshiis ayuu la gaaray buuxa kooxda Atletico de Madrid. Atletico de Madridna diyaar ay u tahay qiimaha Tottenham ay doonayso markan inay bixiso. Marka waan arkaynaa sheekada wixii ka soo kordha. Dhinaca kale xaaladda Gabriel Jesus muuqaalka ugu dambeeyay waa kula wadaaga sheekadiisa Napoli inay doonayso. Napolina ay waajib ku tahay inay daaqada ka saarto Romelu Lukaku oo koox badan ay doonayaan. Marka Master Gabriel Jesus wakiilkiisa waxay kulmeen kooxda Napoli wakiil ka socda sida xaaladda loo gorfayo sheekada loo gabagabeeyo. Arsenal diyaar ay u tahay laacibkan inay biso. Arsenal wax walba waxay u sameynayaan inay boos baneeyaan si ay weeraryahan cusub u keensadaan. Marka xidiga la yiraahdo Gabriel Jesus wuxuu noqonayaa laacib Talyaani oo ku wajahan gaar ahaan kooxda Napoli. Wada hadalladu meel fiican ay marayaan. Marka waan arkaynaa wixii ka soo kordha. Haddii aad muuqaalka heshaan oo like garay kana subscribe noo soo gudbaa.